oo masta ilaahay ku yaab male mugula leewa mugaano kale waa nin weyn lama dhihi karo kaas inuu muluqana wuu ogyahay cayilaa dafe boo cayil dad waa dafi jiray magacaaga aad ba sheegi maanu ku magacaabi ma عندنا حول هذا إلهي codkaan aad maqlaysaan waa Farxiyo Soona oo kamid ah gabdhaha yararka talentiga leh ee TikTok-ka caanka ka ah waxaan qadka telefoonka kula xiriiray ayadoo joogta magaalada Muqdisho Farxiyo Soona waxay kamid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee hal abuurka leh ee TikTok-ka caanka ka ah kana duwan dadka kale Farxiyo ku soo dhawaad barnaamijka dulqaad media waxaan nooga warantaa dad badan codkaaga aad u jecel waana ka duwan tahay TikTok-ka goorma ayaa ku soo biirtay والله رنانتي أنا دان قوشة تيك توك وحان كسو بيري لوادي كون 19 بيشي 22 aan ku soo biiray waxa waaye adii waxa ku jira ugu yaraan 5 bil baa ku jira TikTok dad badan ayaa dhageysta sheekooyinka aad soo dhigtid dadka qaar way ka duwan tahay cod ahaan ka waran arintaas runaantii aniga waxa jirta marka qofka markii uu asaga kama warami kariyo oo asagu isma oga bulshada waxa la yiraahdaa ka hor in ciyaaryahan la weydiiyo waxa la yiraahdaa ka laacay intaas uu ninka daawanayo aniga isma ogla dadkii daawanayo iyo lahjada aan ku hadlayo inta badan dadku ugu taageeraan ay dhahan codkaagan jecelnahay saan waaye lahjada aad ku hadlayso miskiya yeesha ugu dhalatay mid ka dhacday lahjada ana ku hadlaa waxaan bilaabay bishan gudaheeda kahor waxaan sameyn jiray heeso challenge iyo hadal iska caadi waxyaabaha ku hadlay okay mar dhaw bilawday lahjada ana ku hadlaa waxaan bilaabay 2 isbuuc 3 isbuuc kahor maalintan bilaabay waxay ahayd wiilba maalin walba ugu dhahay intuu wiilkii u dhaano gabdho la hadlayo dhahay ilmihiina caruurta aabooda ha dhiginayay hooyadii habarartay hooyadii la taabicay ugu dhahay luqadan lahjada aad lahayn iga dhaaf macnaha hadlaysidba oo rabtid inaad hadashid waa inaad lahjadaada ku hadashaa waxaad lahayn wax kuma taraan waa gartay ana waanadii hooyo qaadanayo rabo inaan waanadii ay iwaanisay lahjadeeda aan ku ekaado lahjada islaamiyada aan iska daayo dhaqankeyga aan ku dhaqnaado waa maalin inaan soo socdo shaqo ka soo socda wiil wuxuu ugu dhahay waalay naa qurxabaatay maxaa la lugeynay waa gartay markaas waxaan isku dayay inaan lahjadii aan ku hadlo maadaama lahjadina aan haysto oo ahay qof miyi ku soo koray oo in badan dhaqankeeda taqaano lahjadii siraysa oo ka taa markaas markaan ku hadlay caawadii markaan 4 saacadood markay tahay waxaan arkay dadka friendska ilaaha oo meelo badan soo wacaayo ilaahay qatara tahay taawahduusa ka helnaysa maalintii ka dambeeyay waxaan garowsaday in aan wax kale ku hadlin maadaama hadlaayo inaan lahjadeeda ku hadlo oo dad badan oo ugu jecel inay jiraan ogaay aad ugu waa ka duwan tahay dadka kale lahjadaha ku hadashid qaabka xitaa xijaab ayaa qaadata dadka ma ku weydiiyaan waa ka duwan tahay gabdhaha kale qaabka ay u soo libistaan dadku ay weydiiyaan waxay dhahaan waxa ugu darneeday wiil wuxuu dhahay naasna malihid dabana malihid dadka aan ku buunbuuninayaan TikTok maxaa ku joogtaa waxaan ku dhahay TikTok-ga 6 hadaa qabto waad qurxan tahay waad fiican tahay waad wanaag badan tahay asturnaantaada lagama tagaan waxa ku jooga codkeyga iyo jalbaadkeyga dadana ugu jecel marka xaalli ahaadaan tahay waxa jirta dad inta badan ay dhaho xijaab leh wada maalinka xijaab leh wada hada xaflad aad xataa xijaab ma qaadanay ani muhiimadu waxay tahay maalinka xaflad laga maarmaan ay tahay xasaas inaan xijaab qoora qaato ee raaxad aan ka dul qaato ma xijaab la'aan inaan soo taliyo ma jeceli okay TikTok-ka imisa flow ayaa leedahay dadka badana aad codkaaga waa ka duwan yahay dad badan oo caan ahaa ayaa ka sii hormartay marka aad ku hadasho codkan runaanti markaan codkan aan bilaabay inaan ku hadlo waxaan haystay adii 12 wax iska yar ahaan oo flow laakiin hadda 30 daawato ama ana flow dhahday meeshaas waxaa ka xad ugu yaraan 20 in ay codkii ugu soo raacday
okay hadda ma noo jili kartaa codka aad samaysid oo dadka aad u soo jiitay ma samayn kartaa hadda adoo ku hadla run ahaanti aniga haddaan kula hadlo codka aniga aan ku hadlo ma jiro waa hili ilaahay ii dhibiyey waa codkayga waa lahjadaydi keliya haddeertaan adigii soo wacday markaan rabo inaan kula hadlo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bal waran xaaladaada sidee tahay ulema raysid siliniga maaha macnaha caadiga ila tahay caadi kula waa xaqiiq real lagu hadlaa okay tan waxaa noo samaysaa codkii aad wiilasha markay ku dhahayeen maxaa u lugaysaa taas wax yar ma nagu taaban kartaa taas waxaa ka taaban karaa ma xasuustaa waxaan xaafadeeda sii gelay wadada xaafadeeda socday wiilashayna gacanaha inii taagay way iga yaabsa mugaana gacan aa inii taagay mugaad waxaad leedihiin naa qurxan ma lugayso baasana ma ogulidiin wala dhibjow maaha mugaad jiraan baasisi wuxuu ku leeyahay weligeed naag baasa ma sii nimankaa shukaansato baasaa ku siiyaana waa ku leeyahay yaa aqliga laa mugood baasa laga qaadaa masha allah aad iyo aad codkaaga aada usoo jiitay dhanka kale gabar agtaragti waxaa tahay maxaa jeceshahay ilaa mustaqbalka ilaa intay gaartid aad jeceshahay run ahaanti ani hamigaan waqti badan aan soo daba joogay ilaa yaraanteydii waxaan jeclaa in aan noqdo weliye weliba dadka dhan ay aqoonsan yihiin siiba waxaan weligey alle ku fahmi jiray aamino muuse weynli iyo farxiyo calafkaaso boosaska istaagiyi inaan maalin soo istaago run ahaanta darajadeedu way ii muuqataa maadaama yaraanteedii aana waxaas ku dagaalin hadeertaanan ku dagaalay alxamdulilah hadda weli waa ahay oo idaacadda ka ahaa ka howlgalaa teeda kalena maxaa la dhahayay bulshadana waa maaweliyaa oo hadal markuu iqabto awal reero boosti ahaan jiray facebookan boost kuri jiray boostkii waxaas waa iska dhaafay hadda hadalkii iqabto tiktokaan la tagaa waxaan dhahaa war maysiine saane dhahay saana maanay ka dhacday saas namaase midinkaaba warhayo midinkaaba edeblago kii been sheegaan waxaan dhahaa beenaad sheegay kii run sheegaan waxaan dhahaa arwaa runtaa reenja waatee hore u soco muga waxaa waaye bool hamigaada markaa dabakacayso waxaa waaye hadeertan saxaafadda markaan baranaya xataa waxaa dhacday in macalinkii ani aan dhib badan ka mari jirnay oo marka oo warka aad tibinayo amba aan baraaska iga qaadayo inuu igu daalo oo i dhaho lahjad aa ku hadlowsaa lahjada dhaaf lahjada iskadaay inkastoo lahjada iskadaayso ii dhawaada waa la qasday markaa microfonka fadhiyo waxaan u hadlaa si mas-uuliyadda ii saaran tahay lahjada waan ka tagnaa oo macnaha xeerka saxaafadda maahan laakiin markaan bulshada la hadlayo si xurahaan u hadlaa macnaha lahjadeeda ku hadlaa okay dad badan oo tiptopka kalena waxaan soo noqday aniga turjumaa miraan adiga sanad waxbaan soo turjumayo filmaan filmkan filmaan turjumi jiray waxaa jiro short film yar oo soo film isku sameeyey koley waxaa waaye ani film waa samey karaa jaajiliiste waa ahay weriye waa ahay maasha allah hamigey waa hor muuqdaa intaasan kasii wadaa ma fadhiisan doono maasha allah dad badan waxay kaga barteen tiktokka laakiin tan hadda aad sheegtay oo werinimada gabar haddana talanti oo cod kar ah oo haddana weriye ah maasha allah ma noo samayn kartaa hal war ama hal report oo ama waxaa ii sheegtay in barnaamijka salaamaha iyo tahniidaha soo jeesay iyo sidoo kale newscaster aad tahay weriyo oo warka akriya hal war kooban oo ma noo samayn kartaa oo wararka aad akrisid oo wax yar ah oo si dhegeystayaasha ay u maqli warka saacadda camala warka saacadda qaabka u akrisid war aad saaka akrisid camal aan war masaakib macnaha iyo cadinsiga wala kala may war caadi ah oo aad diyaarin karta ama tiptopka camal kusoo dhawaada wararka tiptopka أنا أدرى أقرنايا ورك الساعة كلنا أقرنايا لكن ورك الساعة يكسر دوالي واحد ما عادي وآخر اللي بس ورد عمل هذا قلنا ورد ها جود بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناسن دقيستيل كسر دوالي ورك الظهور فرعي الزونة وبدا عبكم مغلبون تانا محاكمة فرعي الزونة ومعلمي وقدم فيه اللي واي زائد نوسي عم بحيسا
dhanka kale taageerayaal badan ayaa farxiisoona gacanta u haatinaya ayagoo doonaya meel ay kala xiriiraan iyo si ay ayada ula hadlaan sidoo kale waxaan meesha ka marnayn taageeraheeda in ay si wanaagsan ay usoo dhaweyso farxiisoona isla weynina aysan marnaba isku dheehin waxaa kaloo jira farxiisoona in ay iska qalbi furan tahay dabeecad wanaagsan tahay codkaasi waa farxiisoona oo aad ugu barateen TikTok-ka waa gabar yar waa gabar attractive oo soo jiidasho leh waa gabar comedian oo majaajile dad badan oo qurbaha jooga ama ha joogaan Europe ama America marka ay fiirsadaan hadallada aad haddii xitaa stress dad badan ayaa ku jiro guryaha maadaama cudurkii coronavirus uu jiro majaajiladaada iyo qusulkaaga aad iyo aad u fiirsadaan dadkaasi maxaad majaajiladeeda iyo qusulkayga aad iyo aad u fiirsadaan maadaama ani Facebooka maalinta kaliya dad badan ay usoo darsado waa fikir marka waxaan isleeyahay maanta marka dad badan ay aqbasho adana mashquul ah WhatsApp-ka lagala soo hadlo inta lagala soo hadla email laga soo waa waxaan ku fikir markii inaan page sameeyo dad badan waxay ugu dhaheen anaga TikTok ma daawano commentiyadooda aragnay waxay dhaheen gabadhan maalmahan video-keeda amaati TikTok ma daawano may page noo sameeyo codsigooda waa u tixgeliyay page sameeyay page-ka waxaan qor kaga qoray numberkayga WhatsApp-ka si oo na aqbalaad aysan u raboonin markay numberka soo helaan ay u soo hadlaan anina aan ugu jawaabo okay social media waxaa kaliya isticmaashaa aan filayaa TikTok-ka Facebook-ka WhatsApp-ka maxaa kale social media dhanba intaas waa dadka social media ani waqti badan aan kusoo jiray waxaa jira dad ani farxiisoona sanadkan 2019 la baxay 18 iyo 17 waxaan ku joogay su'aalihiisii dad badan oo email live aan isticmaali jirno su'aalihiisii yaqaana jiro vivo live la dhaho Soomaalidu ee ku yareedo cadin ka buuxdo waqtigaas laga Soomaalidu ee wada barato waa isticmaali jiray laakiin waxaa jirto aalad aan weligeed isticmaalan Instagram-ka iyo Snapchat-ka waa samaystay laakiin waxba kama isticmaalo waan soo daawadaa wixii soo dhigay ma isticmaalo marka hadda waxaa u badanahay TikTok-ka WhatsApp-ka iyo Facebook-ka oo inta badan aan saaxiibada kala xiriiro okay goorma ogaatay in hibadan aad leedahay oo dadka aad ka qosolin kartid oo goorma aad ogaatay in hibada Ilaahay ku siiyay dad badan aad ka qosolin kartid run ahaantii ani hibadan waxaa ogaaday anoo yariista oo waa da'yara waqtiga waxaan ahaa adiga 16 jir meelahaasaan ahaa markii meel la iskugu yimaado inta badan macnaha gabdhihi wiil markii meel la iskugu yimaado waxaan ahaa qofka ugu kaftanka kulul aan weligiis xanaaqin qofka hadal ku rido waa lagu wada qusi jiro qofka hadal dhaho waa markaas heer waxaan gaara aan dhaho horta ani markaan hadlo maxaa leeyahay qoslaan ana dadka maxaan ka duwanaa marka dadka saaxiibada inta badan waxay dhigi jireen YouTube sameyso TikTok sameyso wallahi billahi kala markaas waqtigaas waa laga soo gudbo inta yaray oo social media isticmaal jiro markaas حتى ثلاثة حتى مو ذنجر أصحاب اسمه ناجر ما اسمه ناجر حد مركي أو جدي تبانكي ناس بسوق جاري بحرين صحيح وأنا سمعت تيك توك وحنا تيك توك أنا مركو وأنا بناجري وأنا حكون بناجري وهاد كبر قاعدة بركتها من وحارك تاسي حارك مايو حارك كبر حارك ماسو حارك يقف مشغول ما جعلين مركز صوت الجوا كبلي مركو عن كل يري لو سؤال طبعا كبشت من كواد وحايد ماسي برنامج الصحافة في سوق الانتباه لكل سبنتي إذا عدى الراديو بنات ران كشقة بلاوي RBB أنا كشقة يو أو وحي يقول لطي ما دام الدور تمرك للسوق دي أنا شقة اللي قلتلين إن أكليبي يرو بعيدين أسميو عن أنا يو أصحاب لو سوش تجرني على القرن أقرأ يعبشين فتاة ويلا دين كري أسلت ميجرنا وادي بتشرني مركزتي واحد عمينا ما لهينين إذا عدي أنك صوي هذي كها إماري كه قصح إلى تبتواي وحنا كفكري هذا الشيء أنا بوجه أن أرقى أن فهم وايو إن أنا عليك أن كهبلو كون كلي أن كهبلو أنت بدنا عقبة وح أسجروا حاجة دمر كتاعي إيمانا نايو هاي حجابة وضعها هاي حجاب كانوا واحد على أنا ما أنت إن أنتم فيديو لكن فيديو أنتم لكن أسوق ليس تحبه إنت كلنا درست عنده درست ما كان له فحاليا بهاين هذين كمان مالين إن المش
arko aan ka dhig kusoo dhigo markaas waxaa lagu leeyahay halkaa xijaab maad qabtaa kan maad qabtaa mar social media maad waxaa loo baahan yahay dulqaad dulqaad aad dad badan oo ku caynaa jiro iyo xushmad dulqaad fara badan iyo xushmad iyo waxaa loo baahan yahay dad qofka hadduu ku caayo xataa inaad adiga ku xadgudbin waa inaa eegtaa haddaa ka aamus weysana aad si sarbeeba oo macnaha asaga aad wax ku dareensiiyeyso laakiin asaga aad kaga aarsanaynin magaca soona goorma ku baxay maxaana magaca soona waxaa goorma ku baxay magaca soona run ahaantii ani marka hore farxiin diina facebook isticmaali jiray magaca soona wuxuu ii baxay 2019 bishii 3 bisha 4 journalism oo markii waa bilaaba dhahay laakiin aan bilaabin waxa uu la taliyay wiil Cabdifataax Ladho oo markaas waqtigaas Masar uu joogay wuxuu ugu la taliyay wuxuu dhahay ma saxafiid ma naqanay ahaa sida weligeed jeclaayaan dheeraa bartaan rabaa wuxuu dhahay saxafiidda naqanaysa naas hadda saxafiidna qasameyso magaca Facebook bedel qiimaha bedel waxa dhan iska bedel markaas waxa ku dhaca maxaa la baxaa wuxuu magacaaga waxaa ku darsanaysaa naas farxiid waa ugu soo warceli wuxuu dhahay anaa ku soo raadinaa wuxuu dhahay oo isoo luqay wuxuu dhahay zona ku darso okay amarkiisu waa yeelay zona ku darso marka farxiid zona saas ay u baxday waxaa jira ruux kale asagana ii baxshay zona nuura laakiin zona nuura magaciiga baa meesha ka baxay zona wakaalada wararka Soomaaliyeed zona saas magacaas okay magac aad u qurux badan waa maadaama taageerayaashaada adduunka ku kulnoor ay ku dhageysanayaan ma noo sheegi kartaa YouTube channel-kaaga magaca ku soo gashid YouTube channel run ahaantii horta YouTube hadda ma ku shaqo bilaabin laakiin farxiin zona official ah qoran qofka markuu uu shaqo bilaabo oo rabana waa iska jirta caqabooyin badan iska jiro waxaa loo baahnaa laptop waxaa loo baahnaa camera mar dhow ka microphone maadaama intaas ani aana awoodin waxaan sameeyaa video TikTok aan ku soo sameeyaa aan ku soo duubo clipkeeda halka daqiiqa aan soo dhigaa laakiin insha Allah waa laga baxayaa camera waa laga baxaa insha Allah waleelahay markii la helo si fiican u soo shaqeyn gali doonaa laakiin ku shaqeyn okay maxaa kula talineed dadka jecel hibadaada adoo kala maxaa kula talineed dad dhalinyaro badan oo sidaada kale hiba leh laakiin aan soo gudbi karin ayaa jiro maxaad kula talineed dadkaas waxaa kula talinayaa dhalinyaradaas codkaaga farxiya gaaban waqtigii hore anaga haddana okay waqti hore anaga wax jaanis uma haysanin uu kalifi jirtay marka rabno in aan macnaha hibadeena aan gudbino danta waxay u kalifi jirtay in xafladaha mas'uuliyiinta ka soo qayb galaan sida xafladaha jaamacadaha iskuulaadka inaan waxyaabo majaajilo ila qosli waxaas aan ka sameeyno laakiin hadda waqtigu waa jaanis haysan waxaa waaye adoo gurigaaga iska joogtid adoo howlaha shaqo ku jirtid TikTok-aad iska sameyso hibadaada ku soo bandhig waa markaas dad badan oo aqoonsanayo oo ku baranayo waxaad helaysaa taageero badan oo kugu xirnaado waxaad helaysaa dad ku dhiirigeliyo waxaad helaysaa dad ku qarab qabto xataa haddaad wax awoodin waxay kugu tari karaan kugu taraayo marka waxaa dhalinyarada qofkii hiba leh hibadiisa soo bandhigtay isku celin waqti badan oo isku celiyaan hadda soo bandhigay maasha Allah waa ku faa'iiday waa taas waxaa ahaa qof hadartaan dadka dhan wada jecel yihiin boqolkiiba adiga 5 waa inta dhaliish iga imaato inta kale boqolkiiba 95 waa dad iyo taageersan oo jecel aad u weyn maasha Allah aad iyo aad ayaad ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad siisay janankana waa dulqaad media aniguna waa wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed wajufa waxaan wareysanayay farxiyo zona oo ah gabadh aad iyo aad attractive ah soo jiidasho leh codkeeda TikTok kana mar dhow kusoo xijaabkeeda lagu bartay waxaan ku okay waxaan ku ridinaa wareysiga la yeelanay farxiyo zona fadlan hadaa ku cusubtahay channelka subscribe dulqaad media freelance journalist Cabdinaasir wajufa